sheekan kuu sheegaya waa sheeko sir ah. sheekadaas waxaan rabaa in aad wax ku fiirisid. markii aad maqasho sheekadaas, marka aad wax fiirinaysid waxay kaa saacidaysaa inaad wax fahamtid. shan muuqaalkii kan ka horreeyay kugu sheegay ama inuu kugu sheegay waxaa la yiri deeqdii gaaladu siin jirtay Soomaaliya waa la joojiyay. deeqdaas iyada ah waxaa dhici doona dad badan oo ku tiirsanaa in ay saaxadda ka baxayaan, gaar ahaan dadkii faa'iidada waaweyn ku qabay, dadka qaadan jiray mashaariicda waaweyn, dadka mushaarada qaaliga ka qaadan jiray, dhammaantood oo ahaa dad waxqabad la sheego oo xoogan oo waxgala aana waddankan ka qaban. dadkaas badankood hawada ka bixi doonaan. waxaa kale hawada ka bixi doona dadkii aan wax soo saarka lahayn kale oo nolosha aana kaalin ka gelin, kuwaas oo iska baashaari jiray waxbana tarmayaan bulshada. okay maxaa weeye faa'iidada ku jira in ay sidaas dhacdo? faa'iidada ku jirta waxay tahay xalay waxaan sheekan kugu fahansiinayaa. xalay waxaan la joogay nin ka mid ah asxaabteeda ragga internationalka la shaqeeya. marka sheekadeennii waxay ahayd sheeko isku xog waraysiya muddaana suukaaya dambaysa. waxaan weydiiyey maxaa ku qorsheynaysaa? ma dhihin mushaaraadkii waa la joojinaya balaaya dhacaysa, keliya waxaan dhageystay wuxuu u dhihi doono anoo filaya inuu ka falcelin doono lacagtaas la joojiyey. wuxuu igu yiri iyo hadda waxaan qiimeynayay in xoolaha 200 oo neef oo ari haddaa gadatid taajir baa tahay. ninkaas already maskaxiyan waa isii diyaariyay. wuxuu isii diyaariyay waddankan maadaama gaaladii lacagta ka joojin doonto qaabkii u noolaan lahaa. ninkii hay'adda subaxdii aadi jiray lacagta markay go'do wuxuu noqonayaa arile. marka sheekadii baan ka sheekaysanay. mar dambe oo aan kala tegi rabnay baan su'aal weydiiyey kale. waxaan ku iri xoolahan iyo ariga ama waxay kugu dhalatay in aad baartid markii lacagta la joojiyay? wuxuu yiri haa. markaas wax xisaabtamay yirniyo waxa ay soo baxday waddankan in meel in laga galo u baahan. meel weyd baa Twitter-ka waxaa isku aragnay nin ama X waxaa isku aragnay nin ka mid ah dadka dhalinyarada arrimahaas ka shaqaysta. marka tweet buu soo qoray wuxuu leeyahay gaajaa loo dhimanayaa, dhalinyaro badan baa shaqo la'aan noqonaysa. oo u jawaabay waxaan ku iri u fiirso. waxaan ku iri dadka halkaan nooga xaraysan oo aqoon-yahanada u badan waa caqligii iyo dhuuxii iyo mustaqbalkii dadkii dhisi lahaa. dadkaas oo noo soo noqda waxa ay noo soo gelayaan xafiisyada dowladda, waxay soo gelayaan shirkadaha, waxay soo gelayaan jaamacadaha, waxay soo gelayaan sidii saaxiibkay oo kale arigay soo gelayaan. dadkaas waa dadkii nolosheena macnaha u yeeli lahaa. marka marxaladda hadda koowaad oo lacagtu go'ayso oo culaysku imaanayo waa marxalad laga gudbayo. dad badan baa ku fashilmi doona. dadka qaybta waxaa laga yaabaa meel fog inay intay la gaadho eebis dilaanba suicidal thoughts ay ku yimaadaan. hadda qaniba wax badan oo been ah oo waddanka ka socda dadkii ka xisaabtami lahaa banaanka imaanaya. dadkaas aqoonta iyo khibradda iyo waxa ay ka shaqeynayeen waxay waxyaabo yaryar deeqa la bixiyo iyo sida loo bixiyo iyo rabooda qashina iyo wax aan dhamaanayn. aqoontii iyo capacity-ga lahaayeen bay waddanka uga shaqeynayaan. waxaa dhici doonta in been badan oo waddanka ka socota, ganacsiga ka socota, oo siyaasadda ka socota, oo arrimaha bulshada ka socota inay oola xisaabtamaan sidii gaaladu ayaga oola xisaabtami jirtay. waana dadka waddankan dhisi lahaa. waxa uu arkaa inay tahay fursad weyn iyo wanaag noo soo kordhay. sida ogtihiin wadamada marka ay hormaraan jiilba jiil uu ka dab qaataa. jiilkaas aqoon-yahanka oo halkaan nooga xaraysan waa jiilkii aan ka dab qaadan lahayn. waa jiilkii waddanka dhisi lahaa, baarlamaanka geli lahaa, ganacsiga geli lahaa. meel baa nalooga xaraystay. mushaar badan ba iska qaataan, shaqo micno weyn gelaysa oo waddanka dhisaysa kama shaqeeyaan. waxaan garanayaa 95
ilaa markii ugu horreysay arkay hay-ad wax bixinaysa saliid iyo busta iyo raashin bay bixinaysa intii bay bixinaysaa almost waa way 30 sano kadib waxaas waanu ka koraynaa waa isku tashanaynaa waddanka khayraad baa ka buuxa xoolo uu leeyahay shidaal buu leeyahay daab buu leeyahay xafoox buu leeyahay kalluun buu leeyahay waxaas oo dhan baa loo daadanayaa laga faa'iideeyay waddanka waa la dhisanayaa noloshuna caadi ku soo noqonaysaa guryaha qaaliga ah iyo beenbeenta qaaliga ku ah mashaariicda lagu cuno waa raqiis way noqonayaan maxaa la dhihi jiray bugcadaha qaaliga ah raqiis way noqonayaan nolosha nolol caadi xisaabtan ku timaada bay noqonaysaa sababtoo ah lacag si dhab ah loo shaqeeyay si been anda ku bixin mayso saasay ahaanaysaa waa guul iyo gabadho noo soo birtay niyad wanaagsan iyo samafal aan ku qaabilno Elon Musk hadduu waddankiisa ku dhiirigeliyo inay xisaabtamaan waxaa noo diiday annaguna inaan xisaabtano wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh